waa hagaag warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa noocyada jacaylka ee jirkaaga ku laran iyo sida ay u kala awood badan yihiin waa marka uu ku haleelo jacayl daraasad cusub ayaa isku dayaysa inay wax ka ogaadaan jirka bini'aadamka iyo dareemaha la xiriira ee muujinaya dhinacyo badan oo jacaylka ah iyo culayska uu ku leeyahay jirka iyo maskaxda baarayaasha jaamacadda Aalto oo ku taala dalka Finland oo adeegsatay xog laga soo qaaday qiimeyn lagu sameeyay 100 qof ayaa arrintan lagu shaaciyay warbixintan waxaa laga soo ururiyay dadkan oo ku aadan ilaa 27 qof oo khibrad u leh arrimaha jacaylka tusaale ahaan daraasadan jacaylka waxaa ku jira jacaylka romantiga ah kan galmada kan loo hayo waalidiinta saaxiibada dadka kugu cusub deegaanka kan ilaahay iyo kan naftaada waxa sidoo kale dadkan la weydiiyay in ay jirkoodu ay ka dareemaan noocyo kala duwan oo jacayl ah iyo nooca ay awoodda u dareemaan jir ahaan iyo maskax ahaan natiijadan ayaa muujisay in noocyo kala duwan oo jacayl ah laga heli karo jirka iyadoo qaar ay daciif yihiin qaarna ay xoog badan yihiin daraasadan ayaa lagu daabacay joornaalka la yiraahdo Philosophical Psychology waa falsafada cilmi nafsiga dareen xoogan oo jacayl ah ayaa laga dareemay jirka ayay yiraahdeen baarayaashu tani waxaa lagu ogaaday jawaabaha ay bixiyeen haweenka da'da yar ee waxbarashada sare dhiganayay iyadoo tani aysan ahayn wax la yaab leh waxa mudan in meel lagu xariiqo in dareemaha jacaylka ee la xiriirada dhow ay yihiin isla kuwa aadka loo dareemo ayuu yiri falasuudka la yiraahdo Betten Ryan oo door weyn ka ciyaarayay daraasadan iyo sidoo kale ururinta natiijooyinkan qiimeyntan ayaa ka qaybgalayaashu waxa lagu weydiiyay in ay midabeeyaan qaabka jirka bini'aadamku si ay u sheegaan qaybta uu ku ukumo dareenka jacaylka iyo sida ay ugu dareemaan si kala duwan maskax ahaan iyo jir ahaanba sida ay ugu raaxaysteen dareenkan iyo sida ay ula xiriirto taabashada ugu dambeyntii waxaa la weydiiyay in ay cabiraan dhawaanshiyaha u dhaxeeya noocyadan noocyadaas jacaylka ee gaarka ah waxay leeyihiin dareen galmo iyo sidoo kale mid romantic ah dhammaanba noocyada jacaylka ayaa aad loogu dareemaa madaxa balse waxa ay xoogoodu ay ku badan yihiin qaybo kala duwan oo jirka ah ayay baariyaashu yiraahdeen qaar waxa ay saameeyaan xabadka halka qaar kalena laga dareemo jirka oo dhan saameynta laga soo bilaabo wadnaha ilaa maskaxda waxa sidoo kale xiiso lahayd in la ogaado in xiriir xoogan uu ka dhaxeeyo awood jir ahaaneed iyo sidoo kale maskaxan ee dareenka qofka deegaanka uu ka dareemayo hadba inta uu fiican yahay dareenka jacaylka ee jirka waa hadba inta ay maskaxdu dareento isla markaana ah mid lagu raaxaysto marka aad dareento jacayl yar xiisaha laabta laga dareemo ayaa si tartiib ah u sii daciifaysa dabcan waxa tan sabab u ah jacaylka loo qaado dadka kugu cusub waxa uu baahan yahay in laga fikiro waxa sidoo kale sabab u noqon kara in dareen qurux badan uu kugu jiro madaxa waa inuu jirka baaritaan dheeri ah uu sameeyo ayuu yiri Rain oo qayb ka ah dadka baariya arrintan waxa uu sidoo kale sheegay in kala duwanaanshiyaha dhaqanka ay sidoo kale door muhiim ah ay ka ciyaarto jacaylka haddii daraasadan laga sameyn lahaa meelo dadka diinta leh ay aad ugu badan yihiin jacaylka ilaahay ayaa ahaan lahaa mid awood leh si lamid ah dadka ayaa jacaylka ugu badan u dareemi lahaa caruurtooda ama waalidiintooda tusaalooyinka jacaylka ayaa ah kuwa aad u fara badan marka laga hadlayo waxaan soo qaadan karnaa tusaalihii la xiriiray haweeney ka mid ah boqortooyada dalka Japan oo saldanadeeda u badashay jacayl dartii sanadkii 2017 oo ahayd markii Mako oo ah gabar ka tirsan qoyska reer boqor ee dalka Japan ay shaacisay inay guursanayso wiil ay isku fasal lahaayeen oo lagu magacaabo Kikumuro waxay sheegtay in ay si weyn u jeclaatay ninkan gabadhan oo lagu magacaabo Amir Mako oo 25 sano jir ahayd xilligaas waxa awoowo u ah boqorka dalka Japan oo la yiraahdo Akihito waxayna guursatay Kikumuro oo ka shaqeeya xafiis qareen kaas oo ay isku da'yihiin Amiridan Mako ayay isbarteen ninkan ay calmatay sanadkii 2012 xilligaas oo ay isku jaamacad dhigan jireen gabadhan ayaa masabkeedii boqortooyo waxay ku weysay guursashada ninkan maadaama sharciga uu yaala qoyska boqortooyada uu dhigayo in haddii qof ka tirsan qoyska boqortooyada uu damco inuu guursado qof caadi ay tahay inuu iska dhigo darajada
ama maqaamka boqortooyada. Waxaa si weyn isha looga hayay arooska amiirada iyo sidoo kale kii Kumuro, maadaama xaaladda qoyska boqortooyada si weyn ay dadka iyo warbaahintu ay ula socdeen xilligaas, waxaana laga filayay inay ilaaliyaan habdhaqanka iyo xeerka u yaala qoyska boqortooyada, balse taasi ma dhicin. 2 bilood kadib waxaa soo baxday warar sheegaya in muran uu ka dhashay lacag uu dhex maray hooyada dhashay Kumuro iyo gabadh hadda ka hor uu la socon jiray. Gabadha waxa ay ku andacoontay Kumuro iyo sidoo kale hooyadiis ay ku guuldareysteen inay bixiyaan lacag dayn ah oo ay ku lahayd. Arrintan waxay keentay su'aal ah in Kumuro uu dhaqaale ahaan ismaareyn doono mustaqbalka iyo kale. Mrs. Mako waxay wax ka dhiganaysay jaamacadda caalamiga ah ee la yiraahdo Christian University ee ku taala Tokyo ee dalka Japan, halkaas oo ay ka baran jirtay culuumta dhaqanka iyo farshaxanka. Waxayna shahaadada labaad ee jaamacadda ay ka qaadatay jaamacadda Leicester ee dalka Britain. Dadka u dhow Mako waxa ay ku tilmaameen qof madax bannaan oo furfuran oo ka dheedheysa yoolkeeda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda amiirnimo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kyodo ee dalka Japan. Waxay markii ugu horeysay sanadkii 2012 la kulantay Kumuro xilli uu u socday kulan ay lahaayeen arday oo lagu diyaarinayay in ay dibadda waxbarasho loogu qaado, waana qareen wax ka dhigta jaamacadda la yiraahdo Fordham University oo ku taala New York ee dalka Mareykanka. Waxa uu dalka Japan uu ku soo laabtay bishii September ee sanadkii 2023 isagoo aan si wanaagsan u labisnayn. Dadka qaar waxay sheegeen in uusan u qalmin in uu guursado amiirada. Ugu dambeyntii labada lamaane way isguursadeen, arooskoodana ma waafaqsaneen xeerka u yaala qabashada aroosyada boqortooyada, waxayna Mako diiday in ay bixiso lacag gaaraysa $1.3 milyan taas oo la siiyo boqortooyada marka qof laga guursanayo. Gabadhan waxay hareer martay dhaqankii iyo xeerkii u yaalay boqortooyada. Mrs. Mako waxay noqotay qofkii ugu horeeyay oo ka tirsan boqortooyada oo tallaabadaasi qaada. Dibadbax ayaa maalintii uu dhacayay arooskooda ka dhacay halkaas. Dadku waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin ilaaliya guurkeena, qoyska boqortooyadu waa nolosha Japan. Hadalaynta iyo weerarka ay kala kulmeen baraha bulshadu waxa ay saameeyeen dhanka maskaxda. Mako haatan waxa ay wajahaysaa walwal sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha dalka Japan. Mako waxay beenisay warkaas oo ay ku tilmaantay mid been abuura. Si walba ha noqotee, xaaladan gabadhan boqortooyada dalka Japan ka tirsan ayaa waxa uu sabab u yahay sida jirka bini'aadamku uu isugu bedelo marka uu la kulmo jacayl.